shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya in ka qayb galeen wasaaradaha waxbarashada heer dawlad goboleed bahda waxbarashada iyo wakiilo ka kala socday beesha caalamka ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya kaasi oo ujeedkiisu waa mustaqbalka waxbarashada carruurta Soomaaliyeed iyo sidii loo horumarin lahaa gaar ahaan kuwa danyarta iyo sidii looga jawaabi lahaa baahiyaha haysta carruurta Soomaaliyeed oo colaaduhu saameeyeen agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya Ahmed Xasan Yusuf ayaa ugu horeyntii faahfaahiyay ujeedka shirkani maartay carruurta Soomaaliyeed haday tahay gabdhaha dadka barakacayaasha qaxoontiga iyo meelaha ay ka dhacaan maartay waxyaalaha degdega ah sida daadadka iyo abaaraha oo loo talagalay barnaamijka inuu qayb ka noqdo ama uu taageero barnaamijka ama qorshaha hawleedka wasaaradda waxbarashada oo ku qatama horumarin iyo ka jawaabid waxyaalaha degdega ah labadaba wasiirka waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in muhiim ay tahay ka jawaabista baahiyaha carruurta Soomaaliyeed mashruucan waxa loogu talagalay in uu wax ka taro dadka ay saameysay carruurta ay saameysay colaadda iyo faqriga iyo danyarnimada waxaan rajaynaynaa in 3 sano kadib uu isbedel weyn ka dhaco ardayda wax ku barato meelaha fogfog sida miyiga iyo qaxootiga iyo muxuu ahaa inta ay saameysay colaaddu mashruucan wixii loogu talagalay dhaqaalihii loogu talagalay bilowgiisii way kan waxaan rajaynaynaa muddada gaaban ee dhow ilaa 67 milyan oo kale in muxuu ilaa 77 milyan oo kale waddanka oo idil in la helo oo inta hadda maalgelintu tahay lagu kaaro waxaan ka mahad celinaynaa in alla intii kaalin ka qaadatay waxaan baleynaynaa adra oo ku guuleysatay inay muxuu ahaa hoggaanka mashruucan qabato ugu dambeyntii wasiirka waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda Soomaaliya ayaa heshiis horumarneed ee dhanka waxbarashada waxa uu la saxiixday hay'adaha caalamiga ee taageera Soomaaliya Cali Cabdulqaadir Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.